بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaan kaga qayb qaadanayaa barnaamijka iftiinsha cinwaankaasoo mowduucayga cinwaankiisu yahay raalli ahow. raalli ahow wax weeyaan kelmad uu qofku isticmaalo ama uu idhaahdo marka uu ficil uu sameeyo qofka kale cajabi waaya oo khalad ugu fasirsado ama qofkaasi si qalad ah uga suurto ah u sameeyo ficilka ama si aan khalad ahayn u sameeyo. haddaba raalli ahow goormaan isticmaalnaa, maxaanu isticmaalanaa? raalli ahow waxaanu isticmaalanaa sababo fara badan ee kow ka tahay inuu qofkan kale ee khaladka noo fahmay ama aanu ku khaldanay inuu nasaamaxo, inuu calool xumo noo qaadin, inaanu dambi ah inaanu kala xanaaqna ama aynu kala dudno ama aynu kala fogaano aynu ahayn. waxa ka asbaabaha kale la isku raali geliyo waxaa ka mid ah qofkiiyo amoodaya inaad adigu aad doonaysa inaad waxa ujeediyood waxa ku sameynaysa markaad ku tira raalli ahow niyaddu saafi garoobaysa. waxaa jiro dhici karaya qof aad laba kelmadood inaad ujeedin intaad iskaga hor timaadeen aad ku kala tagteen aad ku kala cadhooto inaad xataa sakadihiin aad u bedesheen ood waddada mari weeday waayo لأن قفكي يدسكو حناق سنة بها كاتشوغا مالين سيكادي سوكاغا صور بحيا رالي اهو بادكو تري وحيد عيما سيدي بالسكو دودايا اما واسرالي كاليسين شيكادا سالكي باكو دماتي ما انتي دما حسارك صادق وضادي كسان غضي هادا برالي اهو دانا هم اما كتري هادا مالين تاو فعل كاسي دعا دوران هاين محا دعي لها وحوما دعاين مش كيدنا يناقا مقانون وحويان inaan goortaan isticmaali lahayn iyo goobta. haddaba dadka badanaa dadka raali geliya ama cudur daarta waxay u qaybsamaan laba qaybood. qaybi waa qaybta marka ficilkii uu sameeyaan markiiba garta ee iyagu xisaabiya ee garta inay ku khaldameen qofkan intay maadaan markiiba raali geliya. qaarna waa qaar marka cadhadu ka baado ee taga ay soo fakaraan ee waxoogaa soo joogaan ee qaboobaan ayaa xasuustaan in wixii sameeyeen u qaladiy dabeetoo waxay go'aansadaan inay qofka raali geliyaan weli uma imanayaan uma raali gelinayaan si toosa laakiin waxay raadinayaan sabab ama sheeko ama meel iskugu yimaadaan si ay ugu yidhaahdaan raalli ahow aan ahayn si direct. nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markuu khaldamay وتجي إلهي وحول عز وجل لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. حتى أنه تصبح صنع هنا إنه إلهي دمبه سمي أما قالتكو سمي أنا كتصبح صنع هنا إلهي وتصبيح لهين وتوبت كان لهين إلهي وحول لبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. أصحاب الجنة أمد إلهي سيي رير صدح نموتك قواني أبوه وبر سيي xoolo badan iyo nimco fara badan oo siiyay ayaa markuu aabahoo dhintay ayay kibreen oo si damceen inaanay ummadda masaakiinta ay wax siin jireen aanay siinin. ilaahay taayfad buu soo diray oo laga qaaday beertoodii iyo nimcadii ku kibreenba markaasay ilaahay bariyeen oo yiraahdeen toobad bay keeneen. markii toobad keeneen ayay ilaahay bariyeen ana keenna kunna min adh-dhalimin. famarkaa ummad kasta ilaahay inay cudur daarku ama raali gelintu ama inuu qofku khaladkiisa gartaa oo ka cudur daartaa inay wax caadi ah oo tabiici mafruud inuu qof kasta inuu sameeyaa ilaahay azza wa jalla ay quraankiisa xataa ku sheegay. fatawba wax weyn jizo qayb kamida aan cudur daarka. haddaba waxaan ka gudbo qaybaha kala baxan dadka cudur daaranaya waxa weeyaan inaan maanta cudur daarta ama aan idinku raalli ahaada waxa la waxaygu dhibasa ma jiro. waa kelmada afka koronay sida kelmad kasta oo 100 jeer ka xun raalli ah oo isticmaalno maalin kasta 100 jeer. maxaa dhacaya hadduu macallinku ardaydiisa ku khaldamay oo ku dhacday raalli ahaada waxa ifsiin fiiman u jeedinayna saasi dhacday. maxaa dhacaya hadduu aabbahiyo hooyadu
ilmahooday dhagaysan waayeen tallaabo degdeg ay ku qaadeen ay ku ciqaabeen ay ku raalli lahaa markii maanu sameynay ilmihii muxuu ku dhalanaya inuu kelmadda raalli lahaa inaan waxbaba ahayn wax caadiya tahay oo nida lahayn ma aabba oran kara ma hooyo oran kara ma dhalinyar baa oran karta ilmihii wuxuu garanaya inay kelmadda raalli lahaa oo inuu yiraahdo inay tahay wax waajiba markuu qofku sameeyo wax qalada inuu yiraahdo maxaa dhacay مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماكو خالد بن وليد عسيلي سوق جيشكي كما قالوا ان دول كي اسلامي بريق بلادين فرين ايو عسيلي عمر بن الخطاب كان وحشان انه يسوق خليفة المسلمين انتم من بركفولو انه ددك كو يراهدو ان يقرا لي هذا خالد عسيلي دن عسيلي انت بينكو يانا هيسانا نسكورن ان رالهاو kelmadaas waxay saameynta leedahay qofka say u gasho niyadiisa adigu waxaad ogaan kartaa un kaliya markaad qof intaad xumaanad ka fahantay oo kugu yiraahdo raalli haw ayuunbaad fahmi kartaa macnaha kelmadu leedahay haddaba inaku mujtamaceena Somaliland miyaan mujtamac Israa'iili kaliya miyaan mujtamac markuu ficilku ka dhaco intay imaadaan dib ugu noqdo yiraahdo saas uma jeedinay raalli haw ma sharaf daraa maxaa loogu qaataa in hadduu qofku yiraahdo raalli ahaw inuu yahay qof iga baqanaya ama qof bilaa karaamada ama qof aan ahaynba qof kelmad leba hadalkiisa uu ka noqday baa lagu oranaya hebel hadalkayga kama noqon khaladaan sameeyay ayaan ka cudur daartay haddaba anigu maanta halkan waxaan idinka leeyahay ana Hiba Cabdillaahi Saciid iga raalli ahaw qof kasta oo ku khaldamay familkayga saaxiibaday walaaladay cid kasta ay tahay muslimiinta qof kastan ku khaldamay waxaan maanta leeyahay iga raalli ahaw oo saamaxo qalbigaaga iga saamax bisha Ramadaan ee barakaysan waxaan idinku soo gabagabeynayaa raali gelintu maaha ceeb waa ajar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم